daroogada dadka gadaya waxaa la yiri reerkaaga waxa yaala reer walaalka yaala anigu waxaan sheeganayaa nabadoon wiilaan waalid u ahay baa isoo wacay oo dadka dalcadan wax ku gadaya kamid ah oo dad iigu dhow wuxuu yiri gabar baan rabaa inaan mehersado inaad ii doontaan rabaa waana ogahay xaalkiisa xagay ku joogtaa haddayba ila joogtaa hawrado baalka kabarka dhex fadhiyo waa gartay reer keeri ma u sheegi karaa haan iri xashiishow gadaahe gabartaan wiilkaan ma siinaysiin ma dhihi karaa mayo uu yiri badda u wadaan haddaad rabto dadka siri maaye haddana way maqlayaan dhagiisa ugu maqlaa dadna igama xigo xaqeeqa wallaahi oo bilaahi tallaahi wuxuu yiri gabaraan la heshiiyey kabarkay dhex fadhidaa adigaa waalidkeeya nabadoonnaha ii doono uu waxba kama qabeen ma dhihi karaan haddaan u tago cidda xashiishow gadaahe gabartiina ma siinaysiin mayo uu yiri maasha saaysu ka dambaysay dadkuna way la qabaa kaligay maaha waxa deegaankan degan yaani arinta way la qabaan aniga arintaas ay ku dhacday isaguna hadda way maqlayaan waxana loo qabtay maalintii halkaan la yimiday yaani wax la qaba karan anagu qaba karna maaha waana caruurteena waxa ku baaba'aya meesha dad cirka ka yimida ma aha gobolada dadka soo doonta ma aha waxa meesha lagu hayo dadka deegaankeena anaga dadkeeniya ayaa dhibku meesha ku haystaa waara karoone midka yaani cudurka ah oo dadka dilaya mid ka daran oo caruurta dhanoo soo baxaysa qurjubka dhigaya oo awsan dad soo baxayn yaani dhibaatadaas meesha taala marka waxaan maad celeynaa gudoomiyaha gobolka wasiirka amniga taliyaasha saldhigyada gudoomiyaha degmooyinka iyo inta nala maamushayo arinta noo qabatay waan u maad celeynaa waxaana la yiri hadda koor ayaa lo sac waraaba ka dilay waa laga bireeyay nima hilibku wax ka cunay allooda wax ku lahayn laakiin dariska ka warama la yiri wuxuu riyaal dhurwaygu noo dilow dhurow waxa dhiman looda kale wax looga dilba hilibka ku macaaday ana waxaan rabnaa waxa dhimanna inay noo qabtaan iyaga abniya wax qaban kara يعني dad shibila waxba qaban kariyo laakiin wuxuu raali ka yahay inta badan xumaanti meeshan tiilay يعني waxay ka qabtaan aadaan uga mahad celeynaa dadka ka maqan hadda galabtoo la raba inay yimaadiin ama nabadoon ha ahaadaano ama ganacsato ha ahaadaano iyagana waan cudur daaraynaa waa la isu iman doonaa balaayo kasta in laga hortagay rabtaa dad bilaabo wala bilaabay galabtana muxaadaradu waa bilow marka dhalinyaradaas yar yar haddii yaani kulligoor ay eber soo baxaan geed caleen ka dhacday dadka waaweyn aanu kamid ahay meesha waa ka baxayaanay haddaba dalka haddii ilaahay adduunku taagan yahay yaa udada dadku hadday sun wada cabaan oo baaba noqdaan yaa udada dalka ma iri carbeedka dad u naqanay wax ay ka duwan yihiin lama arko dad darooga isticmaalay oo calaq cabaya oo xashiish cabaya oo yaani taambuug cunaya oo balaaya ku dhacdo isduraaya qurjumadu waxaad arkaysid boqolkii qofood toban hadday ka baxdo 90 kala baaba ay naqayaan tobankaas way la joogayaan ma erigay la hadlayaan ma looday la hadlayaan ma gelay la macaamilayaan ilaa inta kale qalbiga ka gubtay wax la macaamilaan male dhibaatadaas in laga hortago ayaan isku guubaabinaynaa warkayguna waa war yaani iska taag war wanaagsan wadaadka meeshan ka baxay baa shaqay Sheekh Yuusuf Rume ayaa sheegay dadkuna waxa la rabaa inay wax maqlaan saasaa loo baahan yahay marka aad u mahadsantihiin